habraaca doorashooyinka ee ay daaha ka rogeen guddiga doorashada heer federaal ee Soomaaliya laakiin gudahooda ay ku kala qaybsan yihiin ayaa iwafur u noqonaya qodobka ugu weyn ee wajihi doona shirka Birita madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya uga furmaya magaalada Muqdisho iyadoo dhammaan beelaha Soomaalidu ay isha ku hayaan hanaanka xulidda ergooyinka oo ah mowduuc xasaasi ah waqti xaadirkan oo ay dowlad goboleedyadu ku foogan yihiin soo xulashada xildhibaanada ay soo hubiyeen dhankooda oo ay u soo diraan golaha shacabka habraaca cusub ee shalay la baahiyay waxa uu awood siinayaa beesha kursiga iska leh iyadoo aan doorka dowlad goboleedka oo dhan goobta ka muuqan balse heshiiskii 17 Sebteembar oo ahaa buddigaha doorashooyinka 2021 waxa uu ogolaanayay in madaxda dowlad goboleedyadu awood ballaaran leeyihiin ha yeeshee habraaca cusub ayaa dhabaha u xaaraya inay meesha ka baxdo saamaynta kuraasta golaha aqalka hoose ee dowlad goboleedyada hadda waxaa jira dhowr dhinac oo isku aragti ka noqonaya arrinta oo horey aad u kala fogaa madasha musharaxiinta ee fadhigeedu yahay Muqdisho waxay u arkayaan in dowlad goboleedyada aan door laga siinin hanaanka xulidda ergooyinka kuraasta u codaynaya taasi waxay u arkayaan mid dhabaha u xaaraysa in ugu yaraan ay soo baxaan xildhibaano gacmaha dowlad goboleedyada ka maran laakiin dadka daraaseeya arrimaha siyaasadda ee Soomaalidu waxa ay leeyihiin ma sahlana in dowlad goboleedyada si fudud ay uga soo baxaan xubno aysan gacantoodu soo marin habraaca waxaa kale oo ka muuqda in meesha laga saaray dhammaan hubinta cidda ergada noqonaysa badqabkeeda nooca ay tahay taasoo horey awood loogu siinayo wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedyada waxa kale oo uu habraaci hore jideynaya ama heshiisku in ergada cidda soo xulaysa ay noqonayso madaxda dhaqanka ee beelaha dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka hubinta oday dhaqameedkana wasaaradda arrimaha gudaha inuu ka diiwaan gashan yahay ee heer dowlad goboleed ay ka mid ahay shuruudaha ilo xoogaali waxay xaqiijinayaan in ujeedada loo sii daayay habraacan cusub maalin ka hor shirka Rooble iyo dowlad goboleedyadu ay tahay mid la doonayo in lagu soo jeediyo dareenka beelaha kulanka Muqdisho iyadoo waliba xubnaha guddiga ay ku kala awood bateen markii arrinta lagu dhawaaqayay inta badan xubnaha guddigu waa ay u codeeyeen sida aanu ogaanay go'aanka in la baahiyo laakiin xubnaha laga codbatay waxa ay diideen natiijada inay aqbalaan sida ay cadeynayaan ila ku dhowdhow ra'iisul wasaare Rooble waxa uu wax ka ogaa siideynta habraacan cusub isagoo saluugay hanaanka xulidda aqalka sare oo walwal ka muujiyay sida dowlad goboleedyadu ay u maareeyeen balse caqabada hortaala laftirkiisu waa heshiiskii Juun ee dowlad goboleedyada iyo isagoo ay si gaar ah ugu heshiiyeen laakiin qolo kastaaba ay darafkeeda ka baxday Rooble waxa uu ogolaaday dowlad goboleedyada bishii Juun dhowr qodob oo ay ku jiraan in habraaca doorashadu ay noqdo mid ay garwadeen ka yihiin dowlad goboleedyadu in lacagaha musharaxiinta isdiiwaangelintooda ay ku shubaan xisaabaadka dowladda federaalka kadibna dib loogu celiyo qoondada dowlad goboleedka laakiin labada qodob hadda ma fulin sida muuqata iyadoo habraac cusubna uu ka yimid Muqdisho dowlad goboleedyaduna dhaqaalahoodii ay ka diiwaangelinayaan musharaxiinta aqalka sare ay ku shubteen akoonna ay gaar u leeyihiin Rooble waxa uu hore u galaaday sidaas oo kale in la dhimo gabi ahaanba awoodda guddiga doorashada heer federaal mas'uuliyadaha iyo shaqada ugu badanna ay qaataan guddiga heer dowlad goboleed iyadoo guddiga heer federaal ay doorashooyinka aqalka sare ee qabsoomay ka ahaayeen marti sharaf lagu casuumay madasha oo kaliya natiijada iyo go'aanada oo dhanna ay lahaayeen guddiga heer dowlad goboleed Rooble ma soo celin doona ayaa la leeyahay dhammaan mas'uuliyadaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee uu horey ugu saxiixay dowlad goboleedyada ka daba tagna kama imaan karto xilligan dhankiisa dowlad goboleedyada qaarkood ayaa xubnaha guddiyada heer federaal ugu jira isla xalayba ku cadaadiyay inay warbaahinta la hadlaan oo ay daha ka faydaan in habraaca guddigu ay ku dhawaaqeen ay yihiin kuwa laga leeyahay dana gaar ah oo aysan u dhammayn xubnaha guddiga taas waxaa durba loo arkay inay bilow u tahay shirka soo wajahan waxyaabaha harayn doona ma sahlana in si fudud looga gudbo arrinta habraaca oo ay cabasho ballaaran ka qabaan dhinacyo kala duwan waxaana muuqanaysa in wadahadallada Muqdisho toddobaadkan ay noqon doonaan kuwa adag oo ay doodaha qaarkood meel xasaasiya gaari doonaan dowlad goboleedyada
waxay wararku caddaynayaan inay qorsheynayaan in haddii laga doodo hannaanka habraaca ee horey loogu heshiiyey bishii Sebteembar iyo Juun ay dhankooda furi doonaan doodda ah in hal magaalo lagu soo koobo doorashada taasoo ayana ka hor imaan doonta heshiisyadii hore loo gaaray oo dhan ma sahlana in si fudud looga laabto magaalooyinka midlabada ah laakiin haddii Rooble ku adkaysta in habraaca cusub uu noqonayo midka lagu soo saarayo xildhibaanada golaha shacabka ayay ka dhignaan doontaa in dowlad goboleedyaduna ay soo qadimayaan shuruudo kale taas oo maalmo kale oo siyaasadeed dib u ridi doonta jadwalka doorashada ee haddaba dib u dhaca ku jira beesha caalamku waxa ay doonaysaa in la dhaqaajiyo doorashada golaha shacabka waxa ay dadaal gelinaysaa in dhammaan caqabadaha oo jira oo dhan duuduub looga gudbo si loo dedejiyo doorashooyinka waxaa dib u dhac weyn ku jira geedi socodka arrimaha mashaariicda Soomaaliya la siiyo oo la joojiyay bilo ka hor dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ka sokowna wakiilada caalamiga waxay laftirkooda ku tiirsan yihiin gargaarka Soomaaliya la siiyo maadaama inta badan ay maamulaan mashaariicaha magaca Soomaalida lagu helo Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu sahlan yahay iyo sida uu dhaqso badan yahay ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka higaada iyo culuumta kale Islaamka